بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال كسو دوادا شاكدا ayaan daran qaybtadii koowaad waxaan aqrin doonaa anigoo ah Maxamed Axmed Sheekh. Kusoo dhawaada saaxiib yaal. asli waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan. baarinimadeeda iyo farxadeeda joogtada ahayd baa soo jiidatay kalgacal gaar ah oo ay waalidku u qabaan. dariska iyo qaraabadu si gooni ah bay carabka ugu hayn jireen. guriga asli wuxuu ahaa gole ay ku kulmaan gabdhaha asaageed ahi iyagoo u soo xiisi jiray sheekada asli oo markay bilowdo dadkoo dhan ka qoslin jirtay. asli inkastoo ay 16 jir ahayd misna meel fog bay wax ka arki jirtay, waxayna la macaamiloon jirtay dadka ka da'da weyn, waxaana loo yaqiin farxaan, waayo iyadoo caraysan weli lama arag, cidina ma sheegin. waalidka asli waxay siin jireen wax alla wixii ay u baahato. waxay aad u jecleed riwaayadaha iyo shineemooyinka hindiga ah. marka ay magaalada aadayso iyo goortay ka soo noqonayso cidina isma weydiin jirin. waalidkuna xorriyad buuxda bay siiyeen, iyagoo kalsooni weyn ku qaba in aanay wax xumaato ah u soo jiiday. asli oo dhigan jirtay dugsiga dhexe ee macallin jaamac wax saaxiibad ah oo u gaar ah ma lahayn. gabdhaha xaafadoo dhan iyo kuwa dugsiga ay isku barteen giddi way jeclaayeen, gurigayna mar kastaa ku soo booqan jireen. cali amuur waxay walaalo ahaayeen asli, wuxuuna ka weynaa 3 sano iyo dalaaciin. maadaama amuur iyo asli ay ahaayeen laba da' oo aan loo dhaxayn, waxay isu hayeen kalgaceel wada dhalasho kii ugu weynaa. amuur wuxuu galay xalane, wuxuuna ka mid noqday macallimiinta biibida, waxaana loo beddela degmada beledweyne. inkastoo uusan weligii ka bixin amuur xamar, misna ma ahayn dadka isku dhejiya goobtii ay ku dhasheen, oo wuxuu jeclaa inuu gobollada dalka oo dhan tago. markii amuur uu u ambabaxayay beledweyne, waxaa sii sagotiyey ciddii oo dhan, waxaana uu sii duceeyey lana sii dardaarmay labadiisa waalid. asli aad bay uga xumayd in amuur ka tago, waayo walaal kale oo wehel u noqdaa ma ay qabin oo aan ka ahayn aamina oo 3 jir ahayd. markii baabuurkii dhaqaaqay, qoyskii giddi gacantay wada luleen iyagoo leh nabadgelyo, soo noqo adoo nabad ah. hooyo jaaw, asli jaaw, aabe nabaday buu si farxad leh ku yidhi cali amuur. asli oo qoslaysa baacod aanay hubin inuu maqlay iyo in kale ku tiri, abboowe cali, beerlula igu salaan. cambaro oo ahayd hooyadeed baa intay asli gacanta soo qabatay ku tiri, naa beeruladaada ma ahee dadkii kaa tegaye inakeen. hooyo macan, markii dugsiga la xidho amuur baan aadayaa iyo isagaa imaanaye maxaad ka dooni, oo asli iyo hooyadeed ku murmayaan baa uu jaamac oo ahaa duqii reerka intuu tagsi joojiyey ku yidhi, war soo dhaqsada, gabalkii baa dhac. dugsiga macallin jaamac asli waxay ku baratay gabar ugu yaraan 5 sano ka weyn oo la yidhaahdo canab, oo ay isku fasal ahaan jireen. canab waxay ka dhalatay qoys aad ugu dheggan dhaqankii hore, loomana oggolayn gabadhu in ay guriga ka baxdo amar la'aan. haddii ay soo dahdana ul iyo suunka aabbaheed baa lala dhici jiray. cadaadiskii canab qoysku ku hayay kama nabadgelin in ay ku kacdo xumaatadii waalidku ka cabsanayay. canab iyadoo marmarsiinyo macquul ah sheeganaysa bay balan la dhigan jirtay rag aan mustaqbalkeeda dan ka lahayn.
waxayna gaartay heer ay qaadka haddii aanay helin xayraanto sigaarkana midba mid bay u daari jirtay shariif macow iyo xaaji xaliima oo ahaa waalidkii canab waxba kama ogeyn amuuraha dhacaya waxayna la ahayd maadaama aan ciidina gurigood soo geli karin oo noo oggoleen in gabadhoodu beyd qabto asli waxay tegi jirtay guriga canab oo ciddii oo dhan ay isbarteen canabna sidoo kale ayay ahayd maalin maalmaha ka mid ah waxaa canab iyo asli dhex maray doodda soo socota walaal asli horta saaxiib ma leedahay saaxiib maya ma lihi adiguna ilaahay saaxiib la'aan ima dhigo sannadkii hore waxaan saaxiib la ahaa wiil magaciisa la yidhaahdo canab axmed oo sarkaal ahaa waan isdagaalnay kadibna waxaan la saaxiibay wiil kale oo macallin ahaa isna waan heshiin weynay sannadkan waxaan bartay wiil kale oo caafimaadka ka shaqeeya oo ah inan aad u dabci fiican waana aad taqaanaa waa wiilkii galabtii aan imtixaanka u soo noqonaynay ilinka noo taagnaa oo aan tagsi wada raacnay kadibna labayadoodu aan la gudubnay waxaana magaciisa la yidhaahdaa khaliif asli waxaa ka soo haray dheegag iyo dhafarar hays faraxii lagu aqoon jiray wuxuu isu beddelay yaab waayo kama ay fileen saaxiibteed barnaamijka ay u guda gashay asli oo yaaban baa waxay tidhi canabay goormaad khaliif isguursanaysaan waxaan isguursanaynaa sannadka dambe markaan fasalka 6aad ka baxo khaliif oo ahaa nin daacad ah markii uu ogaaday taariikhdii canab uuna la kulmay raggii ay hore isu yaqiineen buu goostay inuu ka haro inkastoo uusan si rasmi ah ugu sheegin wuxuuna deriska ku odhan jiray ma joogo dhaha haddii ay isagoo guriga ku jira ay timaado canab waxay maalintii dambe ku soo kadisay khaliif oo aanay ka khasnayn oo la jooga gabadh canab hore ay sheekadeeda u maqashay ayna ku tuhunsaneed in khaliif saaxiib la yahay canab oo indhaheeda ilmo ku soo joogsaday oo caraysan baa gurigii dib uga soo noqotay khaliif oo qoslaya baa intuu gabadhii soo kaxeeyey iyadiyo canab isbaray markaa kadibna canab buu dibadda u soo gelbiyey wuxuuna daaradda uga sheegay in uu yeeshay saaxiibad cusub iyadana wuxuu ka codsaday in ay ka harto oo mar dambe aysan gurigiisa iman canab oo kacsan baa tagtay gurigii asli waxayna u sheegtay wixii qabsaday asli waa qosashay waxayna ku tidhi maxaa ka macno ah ma nin baad weeyaysaa asli waxaa fikraddeeda ku soo dhacay gabadhu waaba yar tahaye maxaa baddaa geliyey may dugsigeeda iska wadato canab waxay u soo martay asli in ay gurigooda u raacdo hase yeeshee asli hooyadeed ayaa maalin joog aaday guriguna cilduu ahaa canab oo laamiga tagsi hodan geeyaa ku sugaysa baa waxaa loo joojiyey baabuur ay saaran yihiin 2 inan oo midkood ay si wacan isu yaqaanin canab way faraxday haya cali ayay tidhi inta ay gaarigii hore u fadhiisatay cali wuxuu u sheegay inuu dhowr bilood raadinayey wuxuuna baray ninkii la socday oo magaciisu ahaa caddaabe markii cabbaar la kaftamayey oo loo dhowaaday gurigii canab buu cali yidhi canabay welima sidii baa gaarka lagaaga hayaa intaanay jawaabin buu ku adkeeyey in caawa iyada iyo gabar kale oo saaxiibteed ah isaga iyo caddaabe ay martiqaadeen canab waxay tidhi anigu waan imaanayaa hase yeeshee saaxiibadday waa maskiinad aan balood lahayn una malayn mayo haddii ay isoo raacdo in ay faa'iido idin leedahay caddaabe ayaa qoslay oo yidhi anigu waxaan ka helaa gabdhaha masaakiinta ah oo aamuska badan bal adigu gacanteeda ku soo hubso aad aragtid sida aan u aqaan sida gabdhaha ugubka ah loo godle canab baa cali oo u hinqaday inuu jawaabo hadalkii ka dhifsatay oo tidhi ma cabsigelinaysaa gabadha xamar xisaab baa taal buu ku celiyey caddaabe cali oo muddo aamusnaa baa yidhi canabay inta aad gabadh shak ku jirto aad noo soo kaxan lahayd maad mid la hubo noo keentid intaan canab hadlin caddaabaa yidhi anigu gabadh aan tii canab sheegtay ahayn ma rabo caliya caddaabe baabuurkii bay mootaysteen waxayna ku yidhaahdeen canab baybay waa inuu habeen dambe iyo 8dii
dhegaystayaal saaxiibayaal waxaa intaas noogu eeg sheekadii ayaan daran qaybteedii koowaad. tani intaan qaybta xigtaa kulmi doonno waxaan idin rajaynaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.